aad meel sidan u badan magaaladeedii quruxda badneed ku soo kordhiseen waxaan ka mid ahaa howlwadeennada ka shaqeeya barnaamijkan la mataan ah oo daaris la yidhaahdo 8 bilood u dambeysay marka aanu ka warramayno faa'iidooyinka Saham Books iyo daaris iyo guud ahaanba foundationku waxyaabaha uu wado waxaan ku darnaa oo nidhaahnaa waxa uu kobcinayaa ama korinayaa heerka akhris qoraalka marka dadku caadiyan fahmaan wixii la taaban karo haddaad tiraahdo meesha waxa lagu soo kordhinayaa dhismaanu dhisaynaa waa lagu fahmayaa haddaad tiraahdo heerka akhris qoraalkaanu kordhinaynaa wax yar mala awaala ayay dadku waxaan doonayaa kolkaa inaan isyar dul taago muhiimadda ay leedahay in bulshadeenna iyo qarankeenna kor loogu qaado akhris qoraalkiisa marka ummadaha la eegayo kasokow in la eego hantida ama raasamaalka dalku leeyahay dhaqaalaha dalku leeyahay bulshada ku nool waxyaabaha kale ay ummaduhu eegaan waxa ka mid ah akhris qoraalka haddii lagu maal gashanayo waxa la eegayaa bulshada intee wax akhrin karta intee wax qori karta haddaan ganacsi furanayo waxaan eegayaa intee garta waxaan macnaha uu ku fadhiyo akhris qoraalku muhiimad weyn buu u leeyahay marka ay ummaduhu inaga soo eegayaan dabadda sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan waxa ugu qaalisan ama hubka ugu culus ee adduunyada yaala waa xogtu waa hubka ugu qaalisan ee adduunka yaala ummadi hadday xog hesho way horu martaa akhris qoraalkuna waa furaha baanada albaabka iyo daaqada xogta ummadan akhriskeeda keedu korahayni xog ma hesho xogtu maxay muhiim u tahay haddii aanad garanayn caafimaadka qoyskaaga oo aanad waxba akhriyi karayn waxa hoos u dhacay qoyskaaga waxa lagu masaalaa mar kasta oo boqolkiiba hal ay ku siyaado akhris qoraalka bulsho waxa hoos u dhaca boqolkiiba 9 hooyada fool arooraysa ilmahu ku dhimanayo boqolkiiba hal uu kor u kaco akhris qoraalka bulsho waxa hoos u dhaca boqolkiiba 9 hooyada iyo ilmaha isku dhimanaya dhanka kale xogtu maxay muhiim u tahay xogtu waxay u muhiim tahay diinta aqeedada aynu haysanaa ha kala duwanaato oo af halaynu soo tabiyo laakiin asalkeedu meel buu ku qoran yahay qof aan xog hayn waxa si yar oo fudud looga marin habaabin karaa dhabbadii saxda ahayd ee ay aqeedadiisa iyo diintiisu haysatay taa waxa uu tusaale ah ummada diintooda laga marin habaabiyo ee xaq jir laga dhigaa badiyaa wado koodu hooseeyo dhanka kale qofka aan xog hayni xuquuqda ma yaqaano haddaad u baahan tahay inaad xuquuqdaada ogaato oo duwahay waxaad u baahan tahay inaad wax akhriyi karto qof aan waxba akhriyi karin ma ogaan karo sidaas darteed baa xuquuqdaan dalalka akhris qoraalka la isku tacadiyaana uu noqdaa dalalka midda baysa si oo xirfadu ay u tahay baanad iyo farsamo haddana xirfadu waa tii meel ku qoran ee guideline iyo hab la raaca leh qofka aan xirfadiisa had iyo goor joogin akhrinteeda iyo daalacashadeedu xirfadiisu waxay noqotaa mid si yar oo fudud looga guuro gunta iyo gabagabada waxaynu u baahannahay horumar qaran oo ku salaysan halbeegiisuna yahay akhris qoraalka waxaynu u baahannahay horumar waxbarasho oo aan ahayn laguna eegayn inta dhisme ee inoo dhismay se lagu eegayo intee buu kordhiyey akhris qoraalka waxaynu u baahannahay guud ahaan guul gobannimo horusocod iyo horumar halbeegeedu yahay akhris qoraalka aad mahadsantihiin ilaahay idin shirfo dhammaantiin